maxaad ka fahantay shirkadda Facebook sida ugula shaqaynayso dalalka reer galbeedka markay dhibaato ka dhacaan maadaama shirkadda Facebook ay isticmaalaan dad badan waxaana laga isticmaalaa caalamka oo idil. Facebook waxaa isticmaalo dhammaan gaal iyo muslimba. Isticmaalka Facebook ayaa aad u sii badanaya sanad walba sanadka ka sii dambaysa, waxaana la wada ogsoon yahay in dad badan maskaxdooda ay siisteen isticmaalka Facebook. waxaa isticmaala dad gaaraya 1.55 bilyan oo bil walba, oo micnihiisa ah dadka dunida ku nooli 4 meelood markii loo qeybiyo meel ka mid ah. Bariis waxaa ka dhacay dhibaato weeraro ah oo ay saameeyeen ururka islaamka isku sheega Daesh. sidaad u taqaano saacadda markay ahayd 5:45 PM sida lagu qiyaasay saacadda, isla markiiba shirkadda Facebook waxay ku soo kordhisay barnaamijka calanka Faransiiska oo micnahaan u taagan Pray for Paris, u duceey Paris. waxaana markhaati ka dhacay in dad badan ay sidaasi Facebook ka dhigeen, sidaasi ay ku jireen muslim iyo gaalba. wadamada caalamka oo idil maalmahan dambe waxaa ka dhaco dhibaatooyin badan oo ay ka mid yihiin midka Paris ka dhacay, mid la mid ah weli ka sii xun. laakiin caalamka waxaad moodaa inay ku wada faraxsan yihiin dhammaan dhibaatooyinkaasi ka dhacayo caalamka islaamka oo idil. qaraxa ka dhacay Paris waxaa ka horeeyay midkii ka dhacay caasimadda dalka Lebanon ee Beirut. waxaa ka dhacay qarax oo dad badan ku dhammaadeen iyo kuwo kale oo qarax ka dhaceen oo ugu horeysay Soomaaliya. sidaas darteed Facebook waxaad moodaa inay ku farxaan oo ay ka aamusaan marka ay dhibaatadaasi ka dhacaan caalamka islaamka ah. dhibaatada ka dhacday Paris dhammaan caalamka ayaa ka naxay oo u tacsideeyay, laakiin markii caalamka islaamka dhibaato ka dhacdo cid isweydiisa ma jiraan. su'aasha meesha taalo oo loo baahan yahay in la isweydiiyo ayaa ah maxay tahay sababta, maxaa keena arrintaasi. aniga ma ihi aqoon-yahan aqoon sare u leh waxyaabaha caalamka ka dhacayo, laakiin waxaan jeclahay inaan u iftiimin karo dadkayga sida loo badan yahay inay hurdada ka kacaan. maxaa yeelay caalamka dhibaatooyin hor leh inuu ka socdo dhexda ma taalo, waxaana loo baahan yahay in cid walba u tashato dadkeeda iyo dalkeeda. mar walba oo aad ku mashquulsan tahay qaabkii aad u xaasidi lahayd horumarka walaalkaaga, aad damacsan tahay adigana cid aadan aqoonin halka ay ka imaaday ayaa kugu mashquulsan. maxaa maanta kaaga muuqdo waxa ka dhacaya caalamka iyo cidda ka dambaysa? maxayna tahay danaha laga leeyahay dunida iyo cidda rabto inay dunida gacanta ku qabato? waxaa hubaal ah su'aalahaasi oo idil inaan ka wada jawaabi karin, laakiin qiyaasta iyo caqliga in la isticmaalo waa laga maarmaan. mar walba bini'aadamka isticmaalo xoogga iyo caqliga waxaa soo kordha in ummaddaasi noqoto ummad horey u socota oo taqaano danaha guud ee hor yaalla. magacayga waa Cabdulla. halkan waa kanaalka dunida.